Ma ogtahay in dhismaha ugu quruxda badan adduunka uu yahay dhab ahaantii qabri weyn oo loo dhisay jecel dhimashaha kadib? Taj Mahal ma ahan kaliya dhagaxyo marmar cad ah ee waa sheeko xanuun iyo farxad isku dhex qasan ah oo qaadatay 22 sano. Maanta waxaan kashifaynaa sirtiisii. Dhismahan oo ku yaalo dalka Hindiya waxaa dhisay boqorkii Shah Jahan si uu xasuus waarta ugu sameeyo xaaskiisii uu aad ku jeclaa ee Mumtaz Mahal, taasoo lagu aasay dhismaha hoostiisa. Dad badan waxay u haystaan in Mumtaz Mahal isla markiiba lagu aasay halkaas, laakiin xaqiiqadu sidaa waa ka duwan tahay. Mumtaz waxay ku dhimatay magaalada Burhanpur iyadoo dhalaysa ilmaheedii 14aad, halkaas oo lagu aasay muddo 6 bilood ah. Kadibnimeedkeedii ayaa laga soo saaray oo la geeyay magaalada Agra si loogu aaso gurigan mucjisada ah. Ma ogtahay in Taj Mahal uusan dhismi lahayn la'aanta xayawaanka maroodiga? Inka badan maroodi ayaa loo adeegsaday dhismaha taaladan. Maroodiyaasha waxay ahaayeen mashiinada qarnigii 17aad. Waxay soo jiideen dhagaxyo marmar cad ah oo aad u culus oo laga keenay masaafo ka fog 3000 oo kiiloomitir. Waxay dhagaxaasi kor u gaarsiiyeen meelaha ugu sarreeya dhismaha iyagoo isticmaalaya ramp dhererkiisu yahay 15 kiiloomitir. Taj Mahal waxaa lagu qurxiyay 28 nuuc oo dhagaxyo qaali ah. Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in dhismahan uu midabkiisa isbedbedelo. Subaxii wuxuu u muuqdaa mid pinki ah, duhradii wuxuu u muuqdaa cadaan saafi ah, habeenkii markuu dayax soo baxay wuxuu u muuqdaa mid dahabi ah. Saaxiib, haddii inta nala soo gaartay fadlan akoonka subscribe dhe, video like saar, noona sii share garay mahadsanid. Maanta Mumtaz Mahal waxay ku jirtaa qabriga rasmiga ee ku yaala dhismaha hoostiisa. Waxaa dhinaceeda ku aasan ninkeedii Shah Jahan kaasoo dardaarmay in laga fogeyn gacalisadiisa xitaa dhimashada kadib. In ka badan 20,000 oo shaqaalaha ayaa ka qayb qaatay dhismahan, kaas oo dhinac kasta markaad ka eegto u muuqda mid isku mid ah, taasoo muujinaysa aqoontii farshaxanimada ee waqtiga jirtay. Adiga ma aaminsan tahay in jecel dhaba dartiisa loo dhisi karo intaa wax ka weyn? Nagu reeb fikirkaada qaybta falada, muuqaalka like saar, page-ka follow video na share garay mahadsanid.